choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Sangin' since summer, Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Samina, mina, anawa, ah, samina, mina, samina, mina, anawa, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. bismillahi raxmaan raxiim galabta waxaa dhacday ciyaar aad u wanaagsan waxayna dhex marayday kooxda yaabkay iyo walaalaha runtii walaalaha ay raacday guushu laakiin aniga haddaan ra'yigayga ka cabiro waxaan jeclaa koobka inay walaalaha qaado wayna ay qaaday waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha isboortiska degmada Guraceel Sicali Gamuure oo ah gudoomiyaha isboortiska degmada oo wax badan ka bedelay isboortiska aan hadda haysano oo kala nama soo marin markaan anaga taag joogi jirnay laakiin ragga hadda jooga waxa soo maray isboortis qurux badan oo wanaagsan oo nidaam leh waxaan aad u miyay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ah u mahadcelinayaa Sicali Gamuure waana mahadsantahay walaani aad ugu faraxsanahay guusha maanta waxaan la dhigi karaa dadaal badan iyo juhdi badan aan u marnay darteed ayaan ku gaarnay maxaa la guusha waan u mahadcelinayaa ragga dhigeena aan ka qaadnay maxaa la sheeko maadaama dadaal badan ay sameeyeen gar laba ninka ma qosliso waa ka qaadnay koobka waana mahadsan boon wanaagga soo bandhigay waa faraxsanahay maadaama ciyaartooyna waxa way guul lama qofood ma ka faraxsiiso labada qofoodna waxa fiican ina oo labada qofood labada dhanba qof ay guush raacileed maadaama leey guuleystana waa faraxsanahay waxaan rajaynayaa tiimka kale ina oo insha Allah du ilaahay idmo ina oo kan waxaan hambalyeynayna gudoomiyaha isboortiska noo qabteen maadaama ay hal eber ku soo idlaatana insha Allah waxaan kulamada kale oo isku imaan doono waxaan rajaynayaa inaan ka qaadno insha Allah du ilaahay idmo marka hore waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha isboortiga iyo guddiga isboortiga degmada Guraceel kadib waxaan u mahadcelinayaa isbitaalka Kulmiye Hospital Dr. Shucayb iyo tiimka la shaqeeyo sida idin muuqato naadiga walaalaha maanta waxay ku guuleysteen koobkii soo socda maalmahan dareenkayga runtii haddaan cabiro farxaddan waan rajaynaynay banoonigu cad iyo madow waay labadaba macnaha inaan nagala guuleystay inaan guuleysan labadaba ku soo tagnay laakiin 100% niyaddeena waxay ahayd inaan koob ka qaadno
naadiga walaalaha waa markii afraad oo final imaado waana qaado koobkii haddana waxaan rajaynaynaa koobka bilaawo doona isbuuca soo socdo inaan mataqaanaa sidii kana u soo wajahnay laba jibaarkeed inaan sii samayno anigoo ku tusanaayo naadigayga oo mataqaanaa u badan da'yar marka loo fiiriyo naadiyaasha kale naadi kale oo aan koobka qaadnay yaabkay ayagana u mahad celinaya bunuun wanaagii soo bandhigeen horena waxaa loo yidhi gaarin laba nin kamooda quslid guushii kooxda oo ilaahay ugu talagalaa qaaday waxaan rabaa marka inaan mahad celiyo beejka Gurceel ciise waa mahadsan tahay guul wacan saaxiib anuu magacaygu uu yahay maxamed cabdi axmed oo ka mid ah tiimka walaalaha waxaan ku faraxsanahay galabta guusha aan gaaray oo ciyaartaas ay ugu dhawaatay hal iyo eber waxaan la dheelayay kooxda yaabkay ayaduna ay kooxdaas yaabkay awoodeeda aysan yarayn balse dhankeena waxaan raacday guushii sidaasoo koobkan ku qaadnay waxaan ku guulaysanay hiigsiga koobka degmada Gurceel ka socday tiimka walaalaha always walaalaha waxaan u mahad celinayaa intuu koobka socday finalka aan soo gaarnay taageerada tiimka walaalaha iyo jamaahiirta mar labaadna waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha isboortiga degmada Gurceel waxaan u mahad celinayaa Dr. Shucayb oo nagu waxaan ku soo dhaweey doonaa degmada waxaan u mahad celinayaa beejka Gurceel oo fursad noo siiyey in macnaha maanta dareenkan ku cabirno kadib markaan guuleysano koobka waan ku mahadsan yihiin ilaaha mahad iskale maanta si qurux badan noogu soo gabagabeeyay koobkii muddo aad u dheer muddo bil iyo ka badan noogu socday run ahaantii koobkaas oo maalgelintiisu ay lahayd Higsi Traders shirkadda maalgashiga Higsi Forex run ahaantii maamulayaasheeda Gurceel iyo Muqdisho aadan ugu hambalyeynayna sida quruxda badan nagala qayb qaateen wali ugu taagan in nagala qayb qaataan run ahaantii koobkan waxa ka soo qayb gashay tiimam ka badan ilaa 14 tiim muddo wuxuu soo socday bil iyo ka badan ku dhawaad ilaa 35 maalin haddii 40 maalin ahayn maanta ay taariikhda koodii bishii 3 2020 waxaan soo gabagabeynay finaalkii koobkii aan ugu magac darnay Higsi Cup waxa isugu soo haray walaalaha iyo yaabkay nasiibku wuxuu ku raacay hal iyo eber tiimka walaalaha soo marka galabta waxaan guddoonsiinay koobkii raantii muuqaal aad u qurux badan jawi degan farxad dhalinyaradu aan ku wada qaadanay waxa ma haddaas ilaahay ka sokow iska leh madaxda Higsi Traders waan kaga mahad celinaynaa sida mar walba u garab taagantiin dhalinyarada waan ku ammaanaynaa kaalinta isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada ka haysaan waana ku mahadsantiin insha Allah. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.